قائدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، walaalayaal khudbadda sidaa ka fahmayseen waxa ay ka warramaysay xaaraantinimada sinada iyo sharcigu sida u xaaraantinimeeyey. mawduuca inaad looga hadlo waa istaahilaan, waayo marka hore wuxuu ka mid yahay dulmigii aynu ka soo warramaynay khudbaddii tan ka horreysay. waa dulmul carab, dadka cirdigoodii iyo sharaftoodii la dulmiye wey. dhegxumaduna way ka darantay dhaawaca jirka, in qof la dilo la dhaawaco mar bay dhegxumadu ka darantay, oo waxaa qofka muddo dheer ka hadhay wey iyo ummadda dooran. midda labaade looga hadlayaa waxa weeye roob la-aanta aynu tabayno asbaabteeda bilmacaasi aahaar fi xayaati alcibaadi walbilaad, waayo macsiyadu raad bay ku leedahay dalka iyo dadkaba. ilaahay la caafiyo la leeyahay wax nasiib bay ka dhiganta. ciddaad wax weydiisanaysaana waxay ku habboon tahay inaad horta ka tala qaadato oo wuxuu kuuli iska daa aad iska dayso. midda saddexaada jirtaa waxa weeye dadku waktiyada fitnadu ay ku badato, gobonnimadu ay yaraato, laga yaabo in dhaqamo kale soo galaan oo shisheeye, waxay iska bataa macaasida noocan oo kale ah. lidalik baa markaad inoo eegto 20 sano ka hor ama 30 sano ka hor dadku say ahaayeen wax badan baa iska bedelay. wixii laga xishoon jiray iyo dadku wixii ay ka dhigdhigi jireen wax badan. waxyaalaha qaarkoodna waaba laga yaabaa dhaqankeena iyadoo sharciga ku khilaafsan yahay daraaddeed soomaalida inuu arrimaha noocan oo kale sahlo. waxay u kalifay mawduucan inuu ka hadlo. waxaad arkaysaa waddooyinkeena dhowr iyo 80 ka hor intii aan la bixin beryaha qaarkood sida shabaabku ahaan jireen shaariciyada sida la isula taagay, oo haddii aad tidhaahdo wiilkii iyo gabadhii kale ajnabiga ahaa ee halkaan ku haasaaway ee ishukaansanayay ka daaya oo wax xaaraan, haddaa xataa tihiin dad maxrama halkan oo kale la isma taaga ka dhaqaan oo lagula dagaalamaya. macnaheedu waxa weeye kufaarid wixiiba lagu faanay iyo dhiiranaan macsiyadii lagu dhiiranya, iyagoo koox koox ayaa guryaha hortoodii la istaagaya oo la fadhiisanaya. dadka qaarkood waxay ku kaliftay markay ka dhaqaajin kari waayeen dadkaa ishukaansanaya aqalka hortiisa inay saliidijin iskaga shubaan. wax kale ay ku sameeyaan ma garanaya. saliidijintaa wuxuu ku shubayaa iga dhaqaan qadiina, waa laga yeeli waa cid ka kaxaysana u waayo xumaantiina u arkay. waxa labaad u kalifay mawduuca odayaal baa qarar badan loo yimaada, su-aalaha igu soo noqnoqon runtii. su-aalaha waxaa la igu weydiinayaa, sheekhow gabadhu markay uur leedahay ma la meherin karaa? maxay ka uur leedahay? dee waa laba dhalinyaro ahoo way isku talafamoobeen ama way isku dhaceen kadibna uur bay yeelatay, markaa ma la meherin karaa? waayo haddii aad tidhaahdaha bala kaleba ma jirtada, waayo saaxiibadii la socdo u eegayaa wuxuu leeyahay inaba la sii hada aynu mehelinayna keenantay. khalaas markuu intaasu ku dhamaa wax badan oo loo sii arkay heheloinasi ku qaato mehersada mooyaane war waxaani macsi wadaa sharcigu muxuu ka yidhi in kuwii la canaanto in lagaba dhiigiyo arrimiiba ma jiro. raadka kale kasii ratib bayaana waxa weeye waladkii meesha ka soo baxayna meherka horreysiis baa loo bixiyo mushkilad weynba ma laha, oo carruurta ninkuubuu ku tirsan yahay, awlaadiisu buu ku tirsan yahay. taasina oo dhaqan iska jirayn ahayd oo soomaalidu iska yaqaaneen, oo lama odhanayo waa wala tusina oo hooyadiiba haynaysa in la doonaha ma la xanaanay, laakiin afkirsnimadii ma laha, dhaxalkii ma laha, lama odhanayo. ragbad sidaaba halkaa galayo reer heraliin kama maarmaane kol hadday garacdaha iska ahaadeen in dhashay liiska ku qora isagana masta tiriya baa ka dhacda. arrimo badan baa markaa waxay kalisaya. waxaa kaloo iyaduna sii badatay guryaha fiilooyinkee magaalada koolayaasheeda baabuur in la iska kaxaysto ama nin hawada ama gabadi abooga ilaalinaya xoogaa qaxwaa loo dhiibo dabeetana meeshii la iska cabintaba oo baabuurta intoo geerashkaa weyn lagu xaraysto
niman iyo dumar ay halkaa isla galaan guryaha xumaan lagu soo sameeyay koonayaasha haddana habeenkii marta dayrarkii waaweynaa iyaguna xidhnaa baa la isla gelay waxaasoo musiibo ah runtii marka aan laga daynin halkaa ay kasii socoto xaafadadu bay gelaysa xaafadaha laftigooda iyo dumarka ay raggu qabaan bay gelaysa waayo musiibadu way fidaa si dib yar lagu fidaa idan ciddii shahaadadii raganimo leh duulduulka noocaasi cid walba uu gaadhayahay hadday maamul tahay iyo hadday shacbi tahayba in la iska kaashado laga dhiidhiyaa waata aynu naxariis ilaahay kaga heli karayna kuna nabadgelay bal aynu eeg nusuusta aayaad iyo axaadiid iyo aasaastii culimada mawduucani halka uu shareecada kaga jiro waaba laga yaabaa da-yarta iyo dhalinyarada qaarkood inaanay aqoon badanba heerka xaaraantinimada u ka gaadhsiisan tahay siladu aanay garanayninba weliba dhalinyarada dibadda oo aan qaarkood iskuba hadlin diinta inay wax ka ogaadaan ama aan fursadba loo siinin inaan qaarkoodba ogeynba siladu inay xaaraan tahay